تحديات كان الداخلي وقوة وحد كاس قبيل وحبائي كسعون وين دولة لماذا الصومالية ويسوي مادان maxay qaadaan Soomaaliya ay toos soo dhaweetana way ooyaan shirarkooda waxa sareysa war wallahi waa kan ilaahay soo hadeeyay abaar markay ooyaan bay istooranayaan oo qolo fanaaniin gabaydo oo heesa la tiriyo calan la wado oo ay kala sameey ayaa dawlad la doortaa dawladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay ama madaxweynaha heli ama ra'iisul wasaaraha heli ama kambaad heli de qolo ma soo baxaysa qolo markay soo baxdo inta dambe waxay dhahan waryaade nimankii reer hebel baa meesha qabsadeen yay nagu dawladoobin hadaba caga haya afartiisa sano caguun baa la hayaa in reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuuska afar sano markaynu halkii u taaganahay ayuun baa hadana heesii dib loo qaadaa Soomaaliya toos waa kii shirkii 20aad bay noor muumad 20 goor shirtaad aragtay waan dawladu u dhalanaynin كيف يمكن اذا ما ها مساله مينا شرين ما ها مينا دولة سمين ما ها waxa مسألة waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa leeyna dhaqan bedel umad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada mukhadara umad qof waliba wuxuu soo gaaro oo xadayo umad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani ma jirto waxaan تيريدنا الدولة دي هلا رقاقة واحد الوري محد دولة ده وقاقة يقول ودولة محد كايدون كو أهل التقوى سنة هدي مدحوينا لقى واحد يسبدل ما يعني وهي الدولة نمد وأمد نين معها قفية لباية صدح معها وأمد فكرة رميستي أو حقاضتي أو كسعطة هذا أنت سيتشرين قفية لباية صدح يكو ضاعت سنة هدي اللي هو انت كلا عقاه يسمحوا صبينيا نريد هبلون بو نقول يا صمد أصو يلا يا مركب إيش أتجاه نريد هبل الذي كلنا وحيلنا عجاه يديك وجود دولة دوبني مركا أيها الأحبة إحنا نوحن أبا هنهي ضعف الوعي العام باكرة أقويهم كوقفك بالدلبة إلى هذان وصناع الرأي وضدك بدل عقوش ومضة ووام حي ومضه عقوش ولا بدله سيده وحو aragtay waa laga bedela مشاكل kuna guduhu ka yimaada ilaahay wuxuu leeyahay laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لبضنا آيات اسكحيان في سورة آل عمران إلهي وحولي دتك مؤمنين تا إلهي وحيدون كوك الله ضيستي دتك مؤمنين تا ربي وحو كن معيستي وكوك الله ضيستي رسول إيجا كمدا وإلهي آيات كيس كدو الأخرين أيها وتزكية نفتو ذا ربين يحمها كطاهر ياليا وكتابك يا حكمة دبرية إنك استوي مركي هردت باضية هاي إذا منهج سحب إلى هيدي سيبا للي لكن هذا منهج كوي عطان حد عيا واتشبيسان مع منهج صحة هاي ستين هذا راعي ويدو يعني نولش إلهي وحط الماما يا سنن ذرسلو قانون بشري إلهي نولش ودتشيي وهذا كصحة مرتنا تقول يسنيسو هذا كقلدن مرتنا أتشبيسو سادردد بقى آياتك وحكتي إلهي وحليه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مركي أيدن على شيء بلايو دب إياكو بقى هدتك كلا مثل مدى قارسيسين أيها واحد ترى قلت من هذا كيف هذا سوى كانوا دعي صانوا تشبني من المؤمنين هين إلهي وحكو شواب قل هو من عند أنفسكم إذنكم بودكم يدكيمي إذنكم بودكم يدكيمي إذا كنا بدك يدهي معناه دوا محي فحلا ليه خالد با حريفة إيو عيد با نتشبيسي وحسوا مرمرسيو عيبت هذا إن عيد كلا دوشة كسار توا مرمرسيو إثيوبيا نتشبيسي كينيا نتشبيسي مجتمع الدولي قابا نتشبيي وروح حسوا مرمرسيو دولي ده يبنوا يسري حيسي إثيوبيا هذا مدلانين كينيا هذا مدلانين maraykanku hadda ma dhalanay markaad jirtayba kuwaniba way jireen haddii qofka difaaciisu jabo مثلا xanuunkan AIDS-ka la yidhaha waa maxay soo maaha
دفاعي جيركا إلهي جيركا دفاع بوسيه هيجنا ووح كستو صوغلا ويرر كو قاديا دفاع عاسي oo laba yiraahdaan dantaala leh oo basaasiin leh oo kan leh waa difaac dhammaystiran qaab ciidan u dagaalama markaad white ballisters iyo say u dagaalgalaan waa qaab ciidan bay u dhisan yihiin wax kasta weeraro dabad kaga yimaada virus ha noqdo maxaa la yiraahdaa bacteria ha noqdo fungus ana wuxuu doonaya ha noqdo wuu difaaca jirka haddii difaacagaasi burburo wax kastaaba way ku dilayaan ina duray u dhimataa bay u badantay sida caadiga miyaynu naqaano qof duray u dhintaa haddii difaacu jabo wax waliba waxay yidhaahdaan bacteria jirta jirka ku jirta oo markuu difaacagu soo jeedo ogol mabda'a taayush silmi inay nabad kugula noolaato waxba ku yeelaynin laakiin hadday aragto difaacaga oo seexday inta badeedba uma baahnid bay leeyihiin inta kugu jirta weerarka qaadaysa then you will be on bed sariirta waa inaad markaa lagu saaraa markii inaga difaaceenu jabay manaacadeenu jabtay dee cid walo kaleba way ka faa'iidaysanaysaa idan eedu ma aha dadka dabaddu maxay waxaa noogu sameeyeen dadka dabadda ilow eedu waa adiga adigu haddaad bini aadam lagu xisaabtama noqoto qofka kalena uu xisaabtamaya maxaa qofkan mari kara maxaan see mari kara haddaad see noqoto qof la iibsan karo dee waa lagu gadanaya dhulka daaya dadkaa la gadanaya dee soo imikaba dadkeenni laguma kala gato libiya iyo meelaha dadkeennaa la gataa dhulkeennaa la gataa xoolaheennaa la gataa wixeen oo dhan baa iiba idan waxaan u baahanahay ayuha alaxiba manaahijtu maaha waxay naga qaldamay waa ku dhaqankii waxay naga qaldamay waa cultureka aynu hadda qaadanay waxay naga qaldamay waa saynu u fakerayno haddaba su-aashii ahayd maxaa cilmigaygu wuxu tari waayey dee cilmigu hadduu suluuk isu bedeliyo dhaqanna waxbuu taraa hadduu theory yahayna dee kama gedisna kaa rikoodhada ku jira ka internetka ku jira maskaxdaaduna waa nooc wax rikoodh gareeya un wuxuunbaad noqoto in hal cajiladaa lagu biiriyo wax lagu rikoodh gareeyo hal meeloo wax lagu kaydiyo ayuumaad ka mid noqotay waxoogaa theories iyo waxoogaa aqoona lagu kaydiyey haddii aanay mar dhaqan noqonayno bini aadamnimadu waa markaa dhaqanka u bedesho waa markuu behavior noqdo waa markuu dhaqan iyo akhlaaq noqdo waa markuu isbedel keeno marka ayuha alaxiba waxbaa baranaysaa si fiican wax u barta weeleeya cilmiga naqdiya oo critical analysis ku sameeya si fiican wax u barta waddankii markaa tagtaanna dad wax cusub soo kordhinaya oo isbedel bulshada ku sameynaya noqda isbedelka rasmigana wuxuu ka bilaabma naftaada haddii adiga diintaada iyo caqiidadaada iyo dhaqankaaga iyo qaab nololeedkaagu isbedelo dan leadership attitude baad leedahay dadkana waad bedeli kartaa markaa haddaad se adigu bahal wuxuu soo gaadhaba cunaya tahay nin reer hebelaa tahay oo reeraha kale iska celinaya intii dee xaggaa lagu hayay uun balas one uun haddaad noqonaysana maa fi faa'ida halkeedii baa la joogaya adiga iyo adeerada iyo awowyadaaba si unba u jabnaanaysaa si unbaana loo sii hoos maraya waxaynu isugu faano markaynu reeraha nahayna waxa weeyaan reer hebel iyagaa iga dhimasho badan maaha annaga ka nolol badan waa boqol baanu ka dilay yar 10 bay naga dileen dhowrkii dagaalaanu gallay dee maxaad kordhisay waa 110 nin oo Soomaaliyeed wada aakhira qabadsiiseen adna wax ma taransan isna wax ma tarin inaad nin Soomaaliyeed aakhira u dirtaa wax tar kuma aha maaha waxaad soo kordhisay maaha wax tar maaha idan nooca ayaynu fakerin ee nooca inaynu wax kordhin karno oo caqli keeni karno oo aqoon keeni karno oo ummadan kor u qaadi karno aan dib uga fakarno sallallahu alayhi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin جزاه الله خيرا وبارك الله فيه شيخنا شيخ مصطفى الله سبحانه وتعالى كأبا مريم ميزان حسناته أوية هذا لها قيمها بضن وضمانتنا نوبها النهي
sheekha waxaan isdhahay aniga xoogaa intaa ka badan waayo hadalkiisa kama daalay saan sheegnay habeen horena waxaa weeye khibro aruurtay iyo cilmi aruuray oo isku tegay waxaan ku qaadanaynaa nusaac taxadiyad